ديدا أول كلا كورت أفر كلا لقدا وعساك ولا وعساك أفر كلا كم لقدا ويا وعساك وين وعساك وصلت كعين بات تجاربه أخلك كل سنة دارت كذا ملاك يا كاية إذا ما شفتوا حرام بكتاي I'm sorry تسير يا مواقبلين أكيد شو لقى علي برعلة جمهلين أكيد قال الكاميرا يا كسوت شلا لقى علي لجمهلين من يضل بتشين دارا لا دارا وحليدين كان ياراريو يا من هنا نبو حتى ما يسمع أول سؤالي لأنا ولا سوق عليهم ما يرونا عنتي حتى ترايان موسى ما دكتاتور يحبك ما تجوا قلت رسول أقبل كاركا حتى ترايان موسى ما خف ماله يحبك ما صحيحه موسى أنت صرنا بيسجع كل مية سوهاي نواشي سنة كلمة قالوا على جماعة قال إني كان على جماعة قالوا واقي فيصل فارق وجوابي ما كرهتين تعال كذا دني يدعو يا هذا على بس تجي يا هذا استاجي كرا يا هذا استاجي كرا دني يدعو يا هذا على بس تجي إنما هو استاجي كرا هذا سلام أبي أبو خالي ومرنا يا لما بهوي تصوير هو أنكو أنا قبيلة أقولين أنكو حسبي ونقانا أي قبيلة للنبرين وحنا الله هذا يا سليمان هذا وحلاي سليمان ومركي أديكو إنجليز كالشوغة لبوشة جاي إن أحمد سيران يبربلي كوسو بحيو عدكو كعسنت هاي مع الدواوين كاجي بتسوي لو ده أرد بات كتير هرجيسة هذه للنبرين وما أنت دعنا هنا إربان نهاي وأنا متشانينا أنت واحد وبعته hargeysadaad ku gamaadeen ragii qaybta ka soo galay ee ku dagaalamay ee wadada bari iyo wadada galbeedba loo baneeyay inay ahaayeen beesha Muuse Biixi marka hore Ahmed Siraayati oo nabar jecel raacsanay oo hargeysa gudaheeda ku jooga ay wasiirkii warfaafinta Cabdilaahi Maxamed Ducaale la shaqeeyaan oo kuwa burcad jooga Salmaan gaal la shaqeeyaan ayaanu anagu waalanay oo nushadi gali weynay oo shuruud xidhan weynay oo maalkayagii iyo noolkayagii iyo naftayadii aanu siday u dhamay idinkay bisiina anagu hadaanu nahay baaweynta Subeera wala abaarku wuxuu nagu dhacay oo aarsan weynay markii Axmed Xamarje oo abara saabka bariiska lagu eedeeyay beenta laga sheegay ولا سوى البوالنا ولا كعي وحبلا نوما دافن بابا يوسف تعالوا أقوياء كسومالي لأنه هو ينبع بخت إيسا لتيتيني مش هابو وفي رأي عبرتي على مبدا المال مياه أفرافر سنة إلال كايستان محاكوا يغا بلدكو بدلي محاكوا يغا سنة بدلي waxaan sheegayaa oo hadlaya deeraha Soomaaliland ee gobolka Maroodijeex mala degan aflagaado iyo caytan iyo cid wax ka sheeg idin kama uma doonayna inaad ku samaysaan waayo inaan idin hadal la doonayno sababtoo ah markaad hadlaysaan ee cid gaar ah weeraraysaan anaga aad nagu socotaan idin lama hadlayno idin ma jawaabayne xukuumadda anaga idin ka cod badnayne aanu iswadane isku kaayadaaya waliba beelahan codka siinayna xusbiyada lahow ee dhulka fadhiista anagu imka kulmiya oo aan kulmiya wali ka bixin ayaanu la gorgortamaynaa wanagu waxay shuruud la'aan diiwaan horta asalba waad noogtihiino way naga rogmanaa markaan wala galayno waan rogmanaa shalay bay ahayd markii aan yaradii waan soo gaaray maalin u dambeysay baan imideen kaabeenkii kulmiyeen runtii aad baan ugu faraxsanaa rajiimka jira in la bedelana way heltay aniga rabitaankaygu habeenkii markaan hooyanay subaxii baan soo noqonay subax kasta waxaan doonayaa inaan fikrad gaar ah iyo soo gaar ah helo subaxii dambe aan nimid koox yar ah loo dhalinyaro ah oo leh haddii la nawada kufsada kulmiyaan mayaareen na kulmiye gabadh ma haysan maxaa ku fariisan kun hadaan aan kulmiye aan habeen ugu jawaabin waxay yiraahdeen na adagu uu yara cabay meedan ogeyn waxay yiraahdeen hadduu soo yara ka bado kulmiye aan way waa ku doortay waa ku codeeyay madaxweyne waa ku soo halgamay
hayso ada xilka haye laakiin miinadu waxay tahay dhalintii juun ayaan ku daray ee dhiiranay ku dhaarsanay dhacda ku xidhnayd baa dhawaaqayso ku soo dhawaynaysa adna siiraayo hadhayalsane waa lafdhabare waa inaad digtaa wacdarahay dhowray maalilaana beesha subeera wallah odhan mayna keligeed bay isbixisaa anagu wax waanu dooran jirnay in badan maantana xilka waanu u baahannahay haddii qaranka somalilan aad ku jirteen uu ahaa xisbiga kulmiye uu u qaybsamay inaad isugu timaadaan idinkoo subeera wala iyo iyagoo beesha habar jecle bahweynta habar jeclaa ood wax ku qaybsateen maanta haddaad wax la kala noqonaysaan ama aad wada wadanaysaan dee ceeb may ahaateen haddii madaxa meel ka sarrayso la taabtaa ma jire xisbigii aad wax amaahaysan ama beeshii aad wax amaahaysan haddaad sidaad wax u amaahaysan aad ka weydeen waxaad ogaataan inaana wax idinka khasaaray aanay ahayn somalilanba reerkaana dib waxba u amaahinayna taana ogaada waxa dhexdii ka kacay inaan beeshii madaxweynaha ku hadlayo xilku hayaaba ay iska tahay naas nuujino dawaad ogtihiin imaka ururo la diiwaan geliyaa ma jirto inanka laydhaa maxay macallin oon anigu taariikhda ku xasuustay intaan ogahay inuu dawladdii daahir riyaale habeenkii u dambeeyo oo ah habeenka qofka gobtiina uu qofka la joogo guntuna ay soo cararto inuu iscasilay oo uu kulmiye yimid inaan idhaahdo xisbiga hadduu madaxweynuhu lahaa muxuu xisbigu garaada ku joogi waaye uu somalilan u dhex